wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Belal Cismaan danjiraha safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ee dalka Turkiga Jaamac Abdullaahi Caydiid diblomaasiyiinta safaaradda iyo mas'uuliyiinta jaaliyadda Soomaaliyeed ee Ankara ayaa ka qayb galay kulan afur ah oo lagu xusayay munaasabadda xuska 62 sano guurada ka soo wareegtay aasaaska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ay soo qaban qaabisay safaaradda Soomaaliya ee magaalada Ankara. ugu horeyn munaasabaddan waxaa ka hadlay oo qaybsamaha arrimaha ciidamada ee safaaradda Soomaaliya General Maxamed Xuseen Karabay. qasadka halka aad u timaadeen wax kala maahan waa inaan dib u xusuusano oo dib u madaxsano kaliya in halkan caawa aan ku wada afurno isla markaasna maalinta weyn ee halyeeyadii qarankan xoogga dalka Soomaaliya maandeeq u soo dhiig baxay qabuurahana ku jira kuna naafoob qaarkood ay maanta furumaha ku jiraan ee cadawga ay hor fadhiyaan inaan maalinta aan wada qadarino weyneyno waxay calaamad u tahay jacaylka iyo wadajirka dowladnimada Soomaaliya. gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee Ankara iyo gudoomiyaha golaha dhexe ee jaaliyadda ayaa bogaadiyay ciidamada xoogga dalka. sidoo kale danjiraha Soomaaliya ee dalka Turkiga Jaamac Abdullaahi Caydiid ayaa dhambaal hambalyo ah la wadaagay ciidamada xoogga dalka. wuxuu sidoo kale ka mahad celiyay doorka dowladda Turkiga ee dib u dhiska ciidanka Soomaaliya. maanta waxaynu joognaa dhalinyaro la tababaray oo ku faanaya inuu ciidan Soomaaliyeed yahay. munaasabadda safaaradda Turkiga ay gaarka la tahay waxa weeye in ciidamada ugu badan oo maanta dabaaldegaya ama dalka difaacaya halkan lagu tababaray. marka runtii dawladda hadda jirtana waa ku hambalyeynana oo waxa marka siyaasadaha laga tago maanta waxa la dhisay waa ruuxda ciidanka waa niyadda ciidanka marka dawladda Turkigana waa u mahad celinayna maanta ururkii 11aad baa ku jira Sparta oo bil ka dib baxaya. ugu dambeynta halkan waxaan fariintan u dirayaa ciidamada qaranka meel joogaanba magacay doonaan ha noqdeen hambalyo 12 Abriil oo maanta ay u dabaaldegeen meel joogaanba intiina dhimatayna shuhada tihiin Ilaahay idin xariisto intiina noolna sharaf baad ku noolaanaysaa. waxaan ku soo dhaweynayaa wasiirka. runtii waxaan rabaa marka koobaad inaan u mahad celiyo safiirka iyo dhammaan howlwadeenada safaaradda ee soo qaban qaabiyay shirkan kuna soo aadiyay maalintan qiimaha badan. waa maalin qof kasta oo Soomaali ah uu garan karo qiimaha ay ku fadhido. ciidan la'aan waa qarannimo la'aan. haddaan ciidan la helin qaran lama helin. haddii qaran la waayana waa la gumoobayaa sidii dhacday. marka aynu ka taxadaro in ciidan la'aan dambe nagu dhacdo si aanan u gumoobin. dhammaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed meel walba joogaan munaasabaddan 62 guurada aasaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan leeyahay ayaga iyo xaasaskooda iyo ilmahoodaba waan idinkaga mahad celinaynaa sida sharafta leh aad noo matashaan noo difaacdaan meel kasta aad u taagan tihiin naftiina u hurtaan sidii annagu aanu nabad ugu seexan lahayn. Axmed Abdiqaadir Ismaaciil Axmed Daruush warbaahinta qaranka magaalada Ankara.